الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdilaahi Yuusuf Xuseen oo ku magac dheer Cabdilaahi Kaabe waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijka u hiili haliga hanka leh waxaan kaga qayb qaadanayaa mawduuc runtii mawduucan ka hadlayaa wuu badan yahay oo waa guusha laakiin dhinacun baan iska taagayaa iyo waxyaabaha asaasiyaadka waa guusha runtii guusha marka koowaad qofku waa inuu isagu han leeyahay waa inay isaga ka go'an tahay waa in uu ku xiran yahay alle runtii qofku haddaanu ilaahay ku xidhnayn iyo cibaadadiisa iyo camal saalixa waxba u hagaagi maayaan waxaa kale waa inuu qorshe la yimaado barnaamijku doonayo inuu ku guulaysto qorshe cad waa inuu u kala horeysiyaa yoolkiisa dhow iyo kiisa fog oo dee qorshe maalmeed qorshe wiigeed qorshe bileed barnaamij xadidan oo kala horeeya kala dambeeya oo time leh waa inuu samaysto waa inuu ay ka go'naataa oo dee aanay ka dib dhicin carabtu waxay tidhaahdaa laa tu'akhir camal alyawmi ila alqad camal aad maanta qaban lahayd beri ha u dhigan oo halkaa waxaa soo gelaysa in qofku isdhigasho markaa dhigashadu guushaadii waa kulid waa inaad fulinteedii la timaada barnaamijkii yoolkaaga dhow iyo kaaga fog qorshaha kuu lahaa ee adiga kaa go'naa waa inaad fulinteedii la timaado runtii waad ku guuldaraysan kartaa waad la waayi kartaa halkaad la rabtay ma gaadhsiin kartid laakiin mar iyo laba iyo saddexba tusaale ahaan waxaynu ku soo qaadaynaa qiso cajiiba quraanjo yar ayaa waxay qaaday oo jeclayd hoggeeda oo gurigeeda ah oo ku yaala geed dushii inay la korto midh hadhuura quraanjadu waa tayaryar hadhuurkuna wuu ka weyn yahay midha quraanjada ah dhowr jeer bay la kortay way la soo dhacday way la kortay way la soo dhacday waxaa ka go'nayd inay hadhuurkaa gurigeeda geyso aakhirkii midhkii hadhuurkaa ka xoog weynaa iyadoo aan cidi la qaadin way ku guulaysatay waana geysay hoggeedii tusaale ahaan waa inaad adigu ku qanacsan tahay guushaadan iyo barnaamijkaagan aad leedahay haddaad ku qanacsanayn ma geli kartid waxaan tusaale idii ka dhigayaa kale marka laba shay oo midna ay guusheeda u kala dhigato si ay wax badan u faa'iido midna ay u dhigato si ay quutal daruurigeeda kaliya hesho tusaale ahaan waa goodaadada bahasha leeyahay goodaadada bahasha la yidhaahdaa guryaha markay marayso midmidh xasharaada ayay urursataa midmidhba markaa midhagaasay ku tagtaa oo guuliyadu u aragtaa laakiin bahasha la yidhahdo caarada iyadu waxay samaysataa guri shabag qorshay dhigatay fulinteedii bay la timi way u samraysaa kadib waxaa u soo gelaya intaasoo xasharaad hadhow bay si aayar iyadoo iska fadhida ay u faa'iidaysaa guusheediina ay u gaadhaysaa markaa halkaa waxaa isaguna soo gelaya inuu qofku ku samro oo dee caqabaadka uga hor yimaado guushiisa uu ku samro dulqaadkeedana yeesho aanu kana harin tusaale ahaan waxaan idiin sheegayaa in qofku uu markan hore ugu yara noqdo halkii hore qorshihiisa wax soo socda iyo wax jooga iyo wax tegey bay noqonaysaa waxa joogay inaad wax qorshe uga lahaato waxa jooga sidoo kale waxa maqan kaa maqan ee aad gaadhin haddii aad halkaa marto maxaa kaa hor iman kara haddii aad marto oo waxaas ka hor yimaadaan maxaad ku xallin kartaa barnaamijka noocaasa guushu dadku meelo badan bay ka aagaan meelo badan bay ka raadiyaan way ku wareeraan laakiin waxa kala duwan meelaha ay dadku u marayaan ayaa kala duwan guushu waxay la yidhi meeshaad adigu ka eegto maahane meel kale ayay ku jirtaa laga yaabaaba inaad adigu meel fog u martay oo aad u wareegtay laakiin se ay u timaado meel dhow runtii guusha aynu ka hadlaynaa waa guusha mustaqbalkaaga waa guusha bulshadaada waa guusha dalkaaga waa guusha ifka aad joogto ee adduunyada waa guusha aakhiro
aad ku liibaanayso xaggii hore waxaynu ku bilownay inaad cibaadadaadu ay ku saxnaato sababtoo ah aakhirad ay ku guulaysanaysaa markaa guulaha ayaa fara badan all gidir guul oo dhan isku duub waa inay ku salaysnaataa barnaamijyada intaa aan soo koobay aan ka hadlay dhalinyaradana waxaan qabaa aad ugu hanweynahay inay intan iyo in ka badanba hayaan laakiin ay ku daraan fulin sameeyaan nin dhalinyaro aanu saaxiib nahay oo nagib salebaanley ah ayaa wuxuu halhays u leeyahay weligayba faalada ficilkan ka jecelaha marka in aad guusha afka ka sheegto inaad guusha eegto oo aad aragto dad guulaystay waxaa ka wacan inaad adigu ficil ula timaado oo aad adigu guulaysato runtii guushaad adigu guulaysataa waxay hanti u tahay waxaa ku faanaya bulshadaada dadkaaga dalkaaga gobolkaaga diintaada iyo magaaladaada waxaan aada ugu buurinayaa dhalinyarada inaanay ku qancin inay guuldaraysteen inay halkaa kaga hadhaan guushii ay rajada ka lahaayeen ee ay mustaqbalka ka lahaadeen runtii guushuna kuma timaado waan niyeysanayaa waan ka fakerayaa waan daawanayaa siyaabaha loo guulaysto laakiinse anigu ficilkeedii lama imanayo kuma timaado laakiin waxaan kelmadda usoo qaadanayaa mahmaadii soomaaliyeed ahayd xagla laaban xoola kuma yimaadaan runtii xoola kamayna hadlayn laakiin guul baynu ka hadlaynay haddaad taan waan seexanaya waan guulaysanaya suurtagal noqon mayso waxaa lagaa doonayaa waxaynu doonaynaa dhalinyar ahaan inaynu u soo baxno dad mustaqbal leh oo ka guulaysta nolosha ay maanta joogaan kuna guulaysta aakhiradooda dambe barnaamijkaygu wuu koobnaa laakiin marka guul laga hadlayo waxay noqonaysaa intaasoo buug baa laga qori karaa intaasoo video waa laga duubi karaa intaasoo taxanaa bay noqon kartaa laakiin anigu waa intaan u arkay inaan idila wadaagi karo bulshay idinka waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan u hiili halyeyga hanka leh u hiili mar kasta goor kasta meel kasta waqti kasta iyo xilli kasta saasaa inoo wada balana waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu